السلام عليكم daawadayaal soo dhawaada mar kale uu soo dhamaaday kulankii xiisaha lahaa uu soo dhamaaday El Clasico waana soo gabagabowday kulankii warbaahinta qabsaday caalamka oo dhan qabsaday ugu dambeyntii maslaxada kooxda Real Madrid ay noqotay kulankii waa uu soo dhamaaday Mbappe mar kale inta uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona 11 kulan oo hore uga hor yimid ayuu 8 kulan oo hore uga hor yimid 11 kulan ka dhaliyay mar kale inta 9 kulan buu ka hor yimaaday 12 goolna waa uu ka dhaliyay ugu dambeyntii Real Madrid ayaa 2 gool iyo gool ku garaacday gool markaasi haafka hore la go'aamiyay kooxda Madrid ayaa bilowday 22 daqiiqo markay mareysay Kylian Mbappe oo xilli ciyaareed qurux badan ku jira ayaa dhaliyay goolkii ugu horeeyay ee El Clasico iyo goolkiisii 12aad ee markaasi uu ka hor imaanayo sidoo kale goolkan wuxuu noqonayaa goolkiisii afraad ee consecutive ee afar El Clasico xiriira uu ka dhalinayo Mbappe wuxuu isku qoray dhamaan wax walba oo kooxda Real Madrid ay u baahneed wax walba oo kooxda Real Madrid iyo mas'uuliyadda kooxda Real Madrid ay u baahneed waayo maxaa dhacay Vini ayaaba xitaa la bedelay oo xitaa ka xanaaqay oo la yaabay caawa performance-igu ku jiray iyo bedelka markaas lagu sameeyay 2 gool iyo gool way soo noqotay kooxda Barcelona 35 daqiiqo markii ay mareysay ciyaaryahan Fermin Lopez oo isagana xilli ciyaareed wanaagsan ku jira tan iyo markii uu ka soo kacay dhaawaca dhalinayana goolkiisii afraad markaasi labadii kulan ee ugu dambeeyay uu dhaliyay ayaa isagana ugu shubay barbaro ka dhigay koorinta aanu Jude Bellingham oo horeyto u sheegay inuu kulankan 3 dhibcood waxaan ahayn uusan markaasi dhalinin goolkii guusha u sahlay kooxda haafkii hore ee ciyaartaba 2 gool iyo gool ay ku dhamaatay taasi oo ugu dambeyn sahashay in kulankaba haafkiisa hore markaasi la soo gaabiyo haye maxaa markaasi laga bartay kulanka ciyaarta markii ay dhamaatayba dhammaan ciyaartooyda kooxda Real Madrid waxa la arkay iyagoo aaday ciyaaryahankii Lamine Yamal waxayna dhahayeen haye hadal hadirtaan waayo waxa la ogaa in Lamine Yamal ka hor kulankan intii aan soo galin oo markaasi sheegay in kooxda Real Madrid kaliya ay ku qaraabato markaasi in garsoorayaasha iyo rigoorayaal markaasi loo dhigay oo aysan ahayn koox markaasi wax kale ku shaqeysata laakiin markii ciyaarta soo dhamaatay oo ay Real Madrid horeyto waatay u yiraahdeen annaga garoonka dhexdiisa baan ku hadlaynaa waana hadirtaan ay sameeyeen oo sahashay in 2 gool iyo gool ay markaasi ku garaacaan hadirtaan marka waxa la yiraahday talk now hadda hadal cid walba waxay leedahay hadal Carvajal u tagay waa yartahay baa la yiri ilmo yar baa tahay hadalka badan iska daaba markaas la yiri ninkii Vinicius ayaa waxa la yiraahday haye hadal ita meeshii waxay ka dhacday meeshii waaba Soomaaliyoodabe dagaal hadii luuqna keen qolka labiska markii Vinicius waxa isku baxsaday Lamine Yamal taasi oo ka dhignaatay caradii iyo waliba caradii weyneed ee hadalkii ka soo yaray Lamine Yamal in dhammaan ciyaartooyda ay saameysay score kale inta meesha laga xiray ciyaaryahan Kylian Mbappe waxa uu noqday ciyaaryahankii soo raaciyay laba ciyaartooy oo waaweyn oo soo kala martay labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid Ronaldinho horeyto markaasi loo garanayay oo 4 consecutive El Clasico ama 4 kulan oo El Clasico xiriira gool ka dhalinayay sidoo kale inta Cristiano Ronaldo ayaa horeyto sameeyay Mbappe ayaa isagana caawa markaas isku qoray scoorkaasi wuxuuna ugu dambeyntii noqday ciyaaryahan kale oo kamida oo 4 markaasi consecutive El Clasico ama 4 xiriir El Clasico gool dhalinay way soo dhamaatay sheeko Alfinita ay noqotay Barcelona waa la dubtay daragtidaada ma ahayd Yamal inuu markaasi hadlo ka hor intaanan kulanka la gaarin sideena markaasi kula ahayd natiijadii kooxda Barcelona markaasi ay heshay ee guul darada ahayd hadda 5 dhibcood ayaa u dhaxaysa Barcelona iyo Real Madrid waxaan markaasi fiirin doona maxay markaasi macallimiinta iyo kooxuhu ay markaasi ka dhahayn macallinkii maanta leelinaya kooxda Barcelona ee ku meel gaarka ah ama macallinka labaad aha Borja Jesus waxa uu markaasi yiri kaliya 2 kulan oo nolol ka badiyay ma noqonaysa xilli ciyaareedka oo dhan 28 kulan oo xilli ciyaareedka ayaa dhiman taasina macnaheedu waxay ka dhigan tahay dib baan u soo noqon doonaa marka ciyaartooyda kooxda Real Madridna dhamaantood Instagram-kooda marka fiiriso waxay soo dhigayeen sawirada iyagoo leh hadir talk now garoonka ku hadalna waxyaabahaas oo dhan ninkii Lamine Yamal caaw wuxuu noqday ciyaaryahan aan markaasi la iska ilaaway kaliyana ku eka social media xitaa waxa la arkay marka qaarkood isagoo markaasi daalan oo markaasi jilbaha haysta taasina waxay ka dhigaysaa macnaha in ciyaarta ka hor aan markaasi laga hor dhicin horey baa markaasi loo ogaa Messi Ronaldo iyagoo dheelaya lamana sheegin ciyaar dhahaan saasaan sameeynaa saasaan jirta saasaan yeelaynaa iyagoo dhahaya ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta Real Madrid 2 gool iyo gool ay ku garaacday kulanka El Clasico inta kulankan mid lamida ku kulmi doono salaam